بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جهانتي ما كسو دواada youtube channelka qodax production dadka cusub ee subscribe saar mahadsanid maanta barnaamijka ka hadlayno xaweyjan sida loo kala googooyay qaaradda Afrika siiba ahaan ummadda Soomaaliyeed ee laga dhigay shanta maamul iyo shanta magaalo madax loo kala sameeyay bal maanta barnaamijka si fiican uga dabagano marka koobaad qaaradda Afrika waa wadanka aynu qaaradda ka tirsanahay ama wadamada Soomaalidu ay ka mid yihiin waxaa dhacday sanadku markuu ahaa 1869kii waa wadanka la dhaho Masar waxa loo furay kanaal isku xidha Saudi Carabaha kaasoo uu dhisay wadanka la dhaho Ingiriiska waxaa dhacday marka in uu Ingiriisku yimaado qaaradda la dhaho Afrika siiba ahaan wadamada kala dhaho Masar uu soo tagay Masar marka waxay gumaysan jirtay iyada dunkeedu wadanka la dhaho Eritrea iminka wadanka kamada bannaan ah waxaa dhacday marka inay Masar horta aragtay in wadamadan Afrika ay wada hodan yihiin waxa dhacday inay reer Yurub uu Ingiriisku hogaaminayo ay dhahaan Afrika weyn soo gumaysano ay waxay hanti haystaan soo dhacno ayuu qorshahaas ku heshiiyeen sida awgeed Masar way ka baxday Eritrea marka ay sheekadan qashay waxayna ku laabatay wadanka iyadoo caadiga u ahayd ee masaarida ku ahaayeen waxa dhacday marka inuu Ingiriisku yimaado wadanka la dhaho Eritrea qaaradda Afrika oo dhan si guud goortu u yimi waxa dhacday inay Ingiriiska la socdeen wadanka Talyaaniga iyo Faransiiska wuxuu yiri waxaan qabsanayaa anigu wadanka Djibouti markaan naqano iyo Eritrea marka Ingiriisku wuxuu diidanaa inay laba wadan oo jaar noqon doona oo hal wadan ay wada gumayso sida awadeed wuxuu yiri ma gumaysan kartid adigu waxaad gumaysanaysaa oo kaliya Faransiiska iyo Djibouti baan ku ogolaa wax kale ma qaadan kartid waayo uu ka awood badnaa uu ka ciidan badnaa dunida qaarkood oo dhan uu soo wada gumaysay awoodaha dunida ka jira oo dhan wadana soo gumaysan kuma jiro wuxuu yiri marka haday saa tahay labadii wadan way isku dhaceen qaybna wuxuu rabaa inuu in badan haysto wuxuu doonay inuu yar loo daayo sida awoodeed labadii wadan hore isku dhaceen baa Ingiriiska wuxuu yiri Talyaaniga waynaad gumaysatid adigu wadanka Eritrea siiba ahaan badda dhaho Masawa Eritrea ka tirsan hajibu yiri sida awoodeed saddexdii wadan ee soo socday dagaal baa ka dhex qarxay raba markaas waxa uu yahay Jarmalkii oo uu hogaaminayay ama marka uu haystay Adolf Bismarck la dhaho sida awoodeed wuu sameeyay Soomaalidu uu soo gudbay qaybtii koobaad ee Faransiis buu siiyay qaybtii labaad Ingiriis isagoo Ingiriis qabsaday marka wuxuu ku yiri wadan walba aad qabsatid magaca oo in lagu qoro Djibouti wax lagu qoray Faransa oo Somaliland Ingiriis wuxuu qabsaday Soomaaliya intii kale haday noqoto Soomaali galbeed haday noqoto Somaliland haday noqoto NFD labadiiba saddexdaaba isaga xukumayay NFD wuxuu ku qoray NFD Soomaali galbeed wuxuu ku qoray Ogaadeniya Somaliland wuxuu ku qoray British of Somaliland waa hal qoomiyad ama hal sinji oo lagu kala qoray shan magac waxa dhacday marka wadamada soo ku geegarayaan waa saddex wadan oo Faransiis Talyaani Ingiriiska marka waxa ay saddex qaybood oo dhulka Soomaaliya ah waxa dhacday marka iminka dadka aaminsan Soomaalida ah dadka aaminsan inay lagu qoray magacyada lagu qoray ay kala tahay ay qabiilada qaarkood ku qorteen su'aal ahaan anigu jirtaan ku noolahay hadeertadan dadka jigjiga waxay aaminsan yihiin Ogaadeniya dhulka oo dhan waxa ku qoran Soomaali galbeed degantahay Ogaadeniya qabiil maaha ee dhulka lagu qoray sababtoo lagu qoran waa in Soomaali wariga islayso haddii fahantiidna alxamdulillah haddii fahmi weydin iminka fahan duwaysa ku qoray markaad ka xorowdid marka balaayo walba ku qoran kartaa magaca waad ku qoranaysaa su'aal waxa kugu filan Ethiopia markii hore xoolo jiray Abdul Habash waa laga bedelay Abyssinia waa laga bedelay Ethiopia loo bedelay iminkadan Ethiopia waa laga bedeli karaa magaca cusub waa loo samaysan karaa si awoodid ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ay raacno taariikhdeenii hore dawlad goob maartay dawladaha Soomaaliyeed ama inka tusaale Somaliland oo kale waxay ku andacoonaysaa Ingiriiska kiibaan gumaystay Ingiriiska ka hor waa jirtay dhulka deganta baadna deganay Somaliland lagu ma oran ka jirin Ingiriisna kuma xukumi jirin dad jira oo nool baa lahaydeen ha ku andacoonina wax waajid wada dhacday ku 884 ilaa 85 bay ahayd waa inay raadisaan yoolkeenii saxda ahaa ee ahaydin asirkeenii hore markaan taas soo ogaano baan waxaan nahay qarsan karaa ummadda la kala goynayna ma fiicna waa inoo dan ma aha waa inuu dhisano oo kaliya dawlad xoog leh oo hal wadan leh oo shakhsiyan saan jeclaan lahaa waliba waxaan samaysan lahayn hal dawlad oo hal magac leh hal maamul leh hal qaran leh oo Soomaali ku idishahay oo shantii Soomaaliyeed la kala gooyay hal mid iskaga dhigo marka dunida waxna weynu dili karaa waxna weynu noolayn karaa Ilaahay ka sukow taas ay noo dana
taasaa inoo ran inuu laakiin sadhehno ogaadeen waa qabiil haddana dhulka haddii lagugu qoray dee dhulka uga tegi maysa ogaadeen sidaa aawadeed waa inaan raadino historyga inay dhabtahay taariikhda saxda ah insha allah cabdillah kariim barsan mahadsanidin dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu